mar wal oo dagaalka sharciga dawladdu inta gurmatay ciidanka istilaya kala qabato midba meel geesa ku hayso ayaa xalka loo doona ahlul xil wal aqd dawlad culimo wax garad kala isku taga inta uu socday mar walba dagaalka waa la gabagabeeyaa waa la soo dhameeyay si diimeed si sharci dawladeed si dhaqan Soomaaliyeed intaba waa lagu day mar walba waxa la yiraahdaa waa la heshiiyay waa la isdhaafsadaa gacanta la qaadaa marka la soo kala qaaqan halku ka bilaabo maanta ciidamada istilaaye ciidamada xoogga iyo ciidamada booliisku way isu tagaan ciidamada qarankuba way kala saareen midba gees bay ku kala hor joogaan laakiin xalkii waxa weeye dadka deegaanka istilaya haddaana iyaga ka soo go'in nabaddu mar wal oo la galaba oo wax ka soo lagu dayaba oo haddana dabka bilaabaan iyaga eed saarantay waa in xalka iyaga laga helo gobolkan madaxweyne waad aragto jabhada caan ku noqdayba oo marka ay mid dhamaato mid baa lagu dhawaaqaya marka meenay mushkiladuba ahayn dadkan quryaha sita aad moodo inay mashaariic ay noqotay in jabhada la sameeyo oo kolba markay qola dhamaato qola kale soo baxdo marka sida wajahaysan arrimaan in ka badan 200 qof aan xidhnay hadii la soo torgaray dawladda joogtay maalmo bal 60 40 maal soo xidha dagaalkan imika dhacay halkan waxa ku xidhan 80 jir way ilmadu wax dileen xaqna maaha maalmo bood iska jiraan soo jiido oo inanka walaalkii inaad arkin la baxsanankii wax dilay qarinaya marka mas'uuliyadda dawladdu soo maaha in dadkan ay wada u kala sameeyso tisooyin ku maqlaan maaha marka horeysa dadku soo wax maqlaan maaha hadda iyaga isku yaacayna adigu kula soo cararaya soo mushkilad maaha marka waxaan u baahnaa aqal laga helo iyaga fadhida nabad in laga helo haddii aqliba laga waayo ka waran madaxweyne maxaa la yeelaya haddii aqliga la waayo dadka waa la isku tag Soomaaliyeed ba isku tag ninka waalida waa la xidhiidha marka bal inta markan ku dhaafo dagaalkan soo noqnoqday gobolka Sanaag hadda waxaad sheegtay cudurkan COVID-19 in aad sameyseen sanduuq aad ugu talagelaysaan inaad lacag ku shubtaan xukuumad ahaan ugu baaqaysaana tujaarta iyo dadka waxaysta inay wax ku soo shubaan lacagta ku shubaysan intii lagta 3 milyan oo lacagta Mareykanka ayaan ku furanaa account karos ayaan dhigayna wax soo socda Ilaahay baa og laakiin imika xanuunku wali wax kamaysan yahay Soomaaliland laakiin dad badan baa ka cabanaya inaanay dhaqaalahoodu hoos u dhacay in danyar ay yihiin in dhibaataysan yihiin sanduuqa maxaa ugu talagelaysaan ma dadka soo dhici doona mise dadkan imika dhibaataysan wax lagu qabto inagu system noo dhisnaa oo waxaan leeyahay social security ama qof waliba inuu dawladdu ay ka mas'uul tahay kaar laho shaqaale laho qorshe laho hawsha aynu u galnay Afrika maray badankeedu inaguna ma inaan samaysan laakiin system kale inuu u noolaano in balaayo kaga baxraabeen leeyahay marka ay wax dhacaan inagu ka waxaya iyo ka faqirka waa la wadalayay hantida boqolaal dhibaatayna soo maray dawladda iyo baamushirka waxay geeyaan waxay noqon doontaa wixii laga maarbi waa la gaarsiiyo dhawaan waxa la isku dayay masaajidada in dadka laga yareeyo oo la yiraahdo bal hadda muddo yar xidha haddana culimadii Soomaaliland way ka daadiga weeday wana diideen intooda badan arrinka ma saas ku daysay culimada intooda badan waa aqbashay in diidana waa jirtay ama si qalada waxa u fahmeen ama iyaga saa hawlay kaatay waxaan ugu celiyay horta ma jirto masaajidka intaan imika ciidan qaadin masaajidada la xidho de moralba ma hay aqoontiisa ninkan masaajidka dadka ku soo raraya waxa Ilaahay u baneeyay nabiga Kaleey salaatu wasalaam inoo baneeyay amarkay dhibaato jirta saah la yeelo haddii uu diiday isaga wax la kala yeeray waa gaar waxa la waa loo erga badiyay intaan talaabo qaadin waa loo erga badiyay culimadu inay iyagu isku noqdaan culinka ugu weynaayo maalintii dhawta diidanaa burcada wuxuu yiri may gaarin waqtigeedii isagu ma oran karo waqtiga may gaarin dhakhtarka oran kara anna ma oran karo anigu madaxweynaha iyo ninkaas ka hadlay labadaydu way dhageysan dhakhtarka taliis dhakhtaradu waxay leeyihiin hadda loo baahan yahay kala fogaado qaadka ku soo gabagabay madaxweyne qaadka laftigiisa culimadu aad u soo qaadeen oo yiraahdaan qaadkii oo socda masaajidada la xidhaya qaadka maxaad ka yeelaysan qaadka waan ka hadlay wixii aan ka qabanayno qaadku imika cudurka hore dhibaatada inta laga been wahay dhan walba dhaqan iyo bulsho iyo dhaqaale iyo akhlaaq iyo caafimaad intaba way naga dilay waxba iska been akhrinayna waa masiibo Ilaahay dadkeena ku saliday maantana qaadaha nimanka bahalka wada waxaan u baahnaa inaan islaaf garanno qolada qaadka iibs iyaguna imika 50% badankoodu waa diyaar meel oo ambay maraysa in aanu isla garanno bahalkiisa inuu joojina laakiin ku qaad wax talabada qaadsa maxaa ka dhalan kara akhriis waa si ku meel gaar ah mise si abadiya anu abadiyan jecel hadii helino